التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات أبي جريدي سينما ساعات ولا وش يعني نشوفين وهي جريدي دينا بس هاتش بالي وش لكن شيخ حتى حرتيسا ميسكا والضبط فريا ودحيا سبريشن باجرا ورميني ووجيب والعذف بودي ونيجي إلهي بوان كاتشون نابو والقسمة والله ما كنت أرتوي يعني كلاس كان اللي يسوي فريسيو ما يهين مركا أما كلاس كي قد وات كي تيجي دون تشيخ إن هذا مدرس كان نقطة عتفصل كان لغة في عربي إن الدكتور تاريخ علماء دويلسن لو تولي تكتادooda laga qorin lagu dhiginta waad saaxa waxaa guri tog weyno sooyaal ku taxayay watiriga culimadu nabigu waa tilmaamo waxay taagayiin boos ruusu sii tagtee hore. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ونكسن لما بدأ وضيال كسر لواد برنامج كني عويس كعلماء ده كل كان أينو وجوكور جلينا تاريخ دي نلاشي يوحقبت كي قار كم ده هل دور كعلماء الصومالي ده كلن كان أيه وحين كفلن قيد دونا كما أيوها شيخ عبد الرحمن كارية محمد أو كم ده هل دور كعلماء الصومالي ده كديب تاريخ نولات كشيخة أيه برنامج كعويس كعلماء ده وحوفر دونا baalal ka mid ah noloshiisii taariikhdiisii waxqabadkiisii iyo waxdhigistiisii waxaana ka warrami doonaa qaar ka mid ah dadkii ugu dhowaa noloshiisa sheekh cabdiraxmaan kaariye maxamed waxa uu ahaa sheekhulbeledkii magaalada hargeysa sidoo kalena waxa uu ahaa mufasir iyo caalim culuum fara badan oo ay ka mid yihiin tafsiirka xadiidka iyo culumta luqada carabiga ka dhigay magaalada hargeysa sheekhu dhalinyarnimadiisii waxa uu ku soo koray magaalo xeebeedda caanka ah ee Bulxaar kadibna waxa uu u cilmi doontay galbeedka oo ahaa dhulkii loo aqoon doonan jiray sheekha culimadiisii wax soo bartay ayaa waxa ka mid ahaa sheekh Umar al-Azhari oo uu ka dhigtay kitaabka uu sheekhu caanka ku noqday ee kitaabka taajka loo yaqaano sheekh Umar al-Azhari ayaa isaguna kitaabkan taajka waxa uu dalka Masar kaga soo qaatay isla qoraagii kitaabka sheekh Cabdiraxmaan Kaariye ayaa waxa uu soo saaray culimo badan oo ka mid ah culimada caanka ah ee iminka bulshadu ay dhageysato waxaana ka mid ah wiilkiisa Dr. Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan Kaariye sidoo kale sheekha caanka Sheekh Maxamed Sheekh Ismaaciil waxa kaloo ka mid ah sheekha qaariga ah Sheekh Xuseen Qalinle iyo isuduwaha wasaaradda awqaafta ee gobolka Awdal Sheekh Xaamud Axmed Nadiif sidoo kale ardaydiisii waxa ka mid ah Sheekh Yuusuf Maxamed oo kutubta axaadiista ka akhri jiray magaalada Hargeysa sheekhu sidoo kale waxa uu ahaa khatiibkii jumcaha ee magaalada Hargeysa sheekh Cabdiraxmaan Kaariye Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariistay ayaa isagoo dhowr iyo 70 jir waxa uu ku geeriyooday dalka Mareykanka halkaas oo laga soo qaaday lana keenay magaalada Hargeysa oo lagu aasay sheekhu waxa uu geeriyooday bishii 12 sanadkii 1993 waxaana lagu aasay xabaalaha 100 jir ee magaalada Hargeysa فضيلة الوالد الشيخ عبد الرحمن كارية محمد sheekha haddaan aan idin sifeeyo raxmatullaahi calayhi wuxuu ahaa sheekhu nin dheer oo cas dharka wuxuu labisan jiray khamiis cad buu xidhan jiray iyo cimaamad cad oo tan madaxa lagu duubaa si gaar ayuu u duubi jiray koofiyadahan sinjibaariga sheekhu ma xidhan jirin marnaba wuxuu ku xidhan jiray koofiyad khafiifa tan ay khaliijiintu xidhaan oo kale cimaamadan uu ku duubi jiray wuxuu mararka qaarkood uu ka dul xidhan jiray koodh kuwan koodharkan oo caddaana mar waan ku arkay isagoo mid buluuga xidhan laakiin la jaan qaadiya labiskiisa wada cad maalinta jimcaha iyo khudbadda jimcaha iyo khudbadda ciideynka
فضيلة الوالد رحمة الله عليه وحو كل بسنت شريستان إني شيء خميس كعاد وما مضاعد يوم مضح قدوبتي وحو ندوش كحنين شري البشت الخليجي إنه كنت جبت بيننا هنا بشت كان خليجي نحدان أما مدو أما مد بني وعنابي أساسه كله حنين شري مركا آدي آد بشيخ وحرق بدنا وجود ذلك شري موقال كيس وجود ذلك شري إن مربوط نقضى موقال لائق مقامك يو يسورتاك وددك يسورتاك يو شيخ رحمة الله عليه تهذا كلام لا من وحويا عذر كان آد بوجعلا وده سنة دوا سنة نبقى وعذر كجعلا مركا آد بو يا عرف جيس يؤذو جيس آد بو فضيلة الوالد رحمة الله عليه وجود ذلك شيء أبو رحمة الله عليه إن شخص ديسي والد نمو أبو رحمة الله عليه وحوها أبو إن حضور كل جرجة جده سا كد ذلك شيء إنه تصاله وننقضه وحمسك هذا إذا كسر دعاية إما كمثل كيو كلا طبعا حلدا أن كورنا أنا جو تيفي نمشي إنترنت نمشي مركا أنا جو يربان كنا يا إنه نورين شيء قصص فربان وحان مرنا إلى بين أنا جو سريرتها لفردنا وانو يرن تمشي بانو كيرين عيال بانو هين هرير هانو كفردنا مثلا سريرتنا لفرديا سريرتيسا ثالث واحد حضرتك كرتا إن الميرو كل يرهن إنه سريرتي أبيه طول فريستو أي واحد بدن كهاي شيء يعني معناها أبني ماذا وشيخ لها رحمة الله عليه مركا وهرير وانو هرير فردنا اسمه نوش كينا وحوش شكينا قصيدة النبي يوسف من البداية عليه السلام من البداية إلى النهاية marka aniga waxa ila ekeed sidoo noogu warinayay aftahanimadiisii sidoo qisada yani uu kulma meel u istaagayay inaad moodiba inaanu yani aanu daawano qisadeena hortaala ee ahdaastii qisada dhacaysa oonu daawano taasina waxa ahayd subhanallah de wax in galay aniga shakhsiyan iyo walaalahayba in qulubteeda gashay aan fiiraa inaan carruurteedina أن أوجد بني علاقة أبنيمو نجد حيسي فضيلة الوالد رحمة الله عليه وحكم هذه الشيوخ نسين تري حلقة قرآن وشوكته حلقة سنة ودورت بعد صلاة الفجر حتى حلية أنو سكول كا وتشرو سكول كا أنو تجينو شيخ حلقة ده موجودين تري مركان صلاة الظهر مركان تكونوا أيو نو إيمان تري ونلف ريسان تري قرآن كانوا أخري ترني ده حكى على قبل بلا بترين لو ديار جروب سكول يتكلم كيسي وحكلا إن كمذا علاقة أبنيمو فضيلة الوالد رحمة الله عليه ونرالها إنه سيتشوبت أو لسه عنشري وحبر شذيها تاسين وحفريا ومد إن راد وين حقيقة إجتكتي ولا راه هنا كجتكتي هدان أستاذ حمزة هدان وحيرك على المامو جدول كونو سمي أبو إما كتحصل كل واحد واحد حلقة القرآن كأرورتي إسكول كيبان تقنا ونصون قلنا قددا مركانو قدينو إلا صلاة عصر وتكنا أيو أبو نسوف ريسنشري وحنو كشقين تشرني هوم وركي يعني محيطولين إسكول كأيانو كشقين تشرني دروس أف عربية أيا تشرتي ولي بآديات وأذكى عن قرنا مركان يرى خط كي في عربي ويسكير سلنا مركان أوجيو أبو حبيان أسلوب كيسوها أسلوب يعني تربوية سو أنت بوك ساويرا ورقة هذا حنبويرا وحنا دقائق باكو في تبويرا هذا سكريسيد مركان تعال تيجي واحد كتوس الساعة دي رجني بكتوس الساعة يدين عنا وكفتن سلام عصر مركو تهجو إلا مغربك أنت كهر رئيسه waxay waxnoo ogolaan jireen inaanu dibadda aanu waliba guriga hortiisa ciyaalka xaafadda iyo jaarka inaanu kula ciyaarno haddana marka maqrib la tukado ayaa inan baa guriga noogu min jiray tuutar oo afkiriisi iyo in mawaadii kale iskuulka uu nala wadaago uu naga caawiyo annagoo wali fadhina oo tuutarkii nala fadhiyo ayuu aaba guriga imin jiray taa macnaheedu maxay ku sheegaysaa aaba ma aqoon inuu guriga ka raago أبداً عادي سماهن ساعات عشاء مركو تكذو على طول بو أب جروب مشري تعرف تيجي واحد نصيصي
nooc yani tarbiyada ayay nasiisay in aabu kaftan badnaa ma sha Allah alayhi in cilaaqad fiican oo de aabanimo ayaan lahayn ama wax siin ama maalinka maanta tawjiihin aabuha bashaash buha inkastoo abaanu maqaaxiya fadhiisan jirin caadada muunahan naadiran baa Sheekh Cabdiraxmaan Kaariye gaargeysan oo koobneed lagu arki jiray isagoo maqaaxi fadhiya ninaan saaxiibeeno in reer Seattle Washington Mareykanka baa la dhahdaa nin aad iyo aad aan isku dhawaan bahay waa Sheekh Cabdiraxmaan Kaariye aragu oo bashaashnimadiisii iyo bulshanimadiisii iyo ninkan isaga meelba kaga dhacaba marka wuxuu oran jiray xaashi wuxuu igu yiri sheekhu markuu masaajid ka soo baxo dukaano badan baa hareer ka yaale ayaa Sheekh Cabdiraxmaan oo dukaanka kan buu salaamiya kan buu la kaftamaya marka horta wuxuu sheekhu ahaa bulshaawi waa aad u bulshaawi oo dadka la dhaqmo oo in sheekeeyo oo in sida kale aan ku yiri muuheen inuu maqaaxi fadhi sheekhu raxmatullaahi calayhi muuheen marka waxaan ku xusuusan karaa inuu ahaa yani macna aan isleeyahay waliba ustaad Xamsow wadaadadeena badankoodu maanta malaha oo ah jaanibkaasi bulshaawnimada waxa laga yaabaa wadaad badan jazakumullahu khayr juhdiga ku dhexjinaan diintii laakiin sheekha iyo xitaa xirtiisa miiska uu daba fadhiya u dhaxeeya separation baa jira laakiin inuu dhalinyartii la fariisto oo uu sheekeeyo oo la kaftamo wax dhibaato ku jira ma jiro bal saasaad dhalinyartii aad ku kasban kartaa marka waxaan aaba raxmatullaahi calayhi ku xusuusan karaa in de isagoo sheekha isagoo maalinka maanta ah in caalima ayaa haddana muugoyn cilaaqada in dad kale lahaa ama caruurtiisa ahaadaan ama heelkiisa ama bulshada inta kale ahaado aabo markuu mujtamaca la dhaqmaayo طبعا mujtamaca waxa ku badnaa caadaad badan oo suufiya ku badnaa oo xitaa xirti iyo culimada qaarkood ay dhinaca u janjeereen laakiin aabo dhinac buu iska leexin jiray oo midalkoo kale masaajidkiisa marka taraawixda aanu tukano masaajidka Haruulaha jaamica hore salaada taraawixda marka laga baxo qolooyin baa intay sursaan oo dadka kaga haraan markiiba ay la boobaan xadradii la boobi jireen laakiin aabo raxmatullaahi calayhi intaasan la tukaday rabadaan ka soo la tukan jiray in xadrada lamu geli jirin uu ka soo bixi jiray masaajidka ziyaarada oo barxadle waligii aaba mutay annaga lafteeda markuu quraanka noo dhigay aabo raxmatullaahi calayhi mawlidka noo dhigin marka taasina waxaan ku darayaa inay tahay in sifooyinkiisii dhinacaasi mujtamaca siduu uga in gaarka ahaa ayaan ku sheegaya sheekh Cabdiraxmaan Kaariye الله إلهي نحرس الله الرحمن نحرس الله سيو وحنكو كلني مقالة هرقيسة يسقوا مساجد جامعة قديم هرقيسة إمامك علماء دي أما وحجري علماء حرو لون جري بريجرو علم نال أمريكس كل إلهي سبحانه وتعالى كواسي وافجي كل بواحدة الله إلى كل سيئة برجع هرقيسة مدة إلى طبصنا كما يرى إنتان شيخ سنغاني لكن حرير كي يقول أكثر وحوها إلى شسنه إلى لحسنه كتاب تفسير كان حقيق أدو يرتحمي أو إلهي قري يكتاب أو كلي من إثيوبيا لورد التاج الجامع أو مؤلف كشيخ مصور الناس أو له سونا أكثر وحنبار سنة كتابك لبا goor insha Allah kaana la haleelay kadib marka xiriir wanaagsan baa naga dhaxmaray ilaa qabto ay soo gaadhay wallahi Sheekh Cabdiraxmaan Kaariye 83kii baan maartay oo Muqdisho markaa ka imiday ayaan maartay kitaab uu dhigayay oo kitaabkan taajka la yiraahdo shanta mujalladooda ayuu markaa dhigi jiray masaajidkii jaamici qadiimka ayuu ku dhigi jiray marka imaamna uu ka ah masaajidkaas jaamic القديم oo ku yaala maartay halkan xaruurka lagu dhaxiisa ku yaalay marka sheekhu ma sha Allah kitaabka si fiican uu nagu dhigi jiray maalin buu taariikh waxa noo sheegay maartay sidoo ku bartay kitaabka marka wuxuu yiri kitaabkan taajka ah anagu markaan dhiganaynay buu yiri galbeed baan ku dhigano kitaab ma aanan haysan buu yiri sheekhi noo dhigay korku nooga dhigay buu yiri isna ma haysan korku ku xifdsanaa kitaabka anaguna kitaab ma haysan korku ma kaga qaadanay buu yiri
markaa sheekhi kitaabka qoray ayay saaxiib ahaayeen buu yihi sheekhu soomaali baa noo dhigay buu yihi laakiin sheekh kitaabka qoray ayay saaxiib ahaayeen isku jaamacad ahaayeen 2 kursi oo isku xigta ayay maaragtay wax ku soo wada barteen jaamacadda marka kitaabku ka soo xiftiyey markaa sheekhii mu'alifka ayuu ka soo xiftiyey dabeedna annagu noo dhigo korku nooga dhigu yiri marka sheekh maaragtay maasha allah kitaabka sanadkiisu markaa wuxuu ahaa caali buu ahaa cibaadadiisa sheekhu raxmatullaahi calayhi dabcan markaynu ka nimaando dee faraa'idda iyo horta sheekhu wuu quraan akhris badnaa waxaan garanayaa markii aanu yar kornee unoo ogolaaday inaanu masaajidka annagu iskay u tagno xilliyada fasaxa ah eanu iskuulku jirin wuxuu sheekhu naga dalbi jiray inuu masaajidka ilaa 11 barkaanu soo galno waxaan ugu soo geli jirnay isagoo fadhiya oo musxafkii hor yaallo oo akhrisanaya musxafkii akhrisanaya xataa aakhir cumrihi intii indhiisu aanay daciifin sheekhu quraanka aad buu akhri jiray in soonka shawaalka uu soomi jiray de kolley waxyaabo badan oo uu cibaado lahaa way jireen laakiin wuxuu ahaa raxmatullaahi calayhi de intii aan ka xusuusto waxa weeyaan sheekhu wuxuu ahaa quraan akhris badan in masaajidkana dee in imaam buu ku ahaayo jamaca uu tukan jiray in witri isagoo ka teganaya aabba marag witrika kama tegi jirin wuu tukan jiray raxmatullaahi calayhi sheekh cabdiraxmaan kaariye markii aan xusuusto taathiirka uu igu sameeyo amba xusuusta igu sameeyo wuxuu ahaa nin zamankiisa maahir ku ah oo caalim ku ah oo afkaartiisu iyo go-aankiisa markiiba dhiibta shareecada islaamka iyo diintana looga dambeeyo aad iyo aad wixii waxbaad moodaysayba zamankiisa inuu ahaa lajada nimka la amru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar baan ku xusuustaa waxaan odhan karaa iyada oo kaamila ayuu ahaa zamankiisa hadduu dowladda mararka qaarkeed la hadlayo khudbadda uu ku bixiyo yacni waxaan xusuusanahoon u soo joogay isaga oo maxfal ka hadlaya oo yidhi yacni aada u canaantay hees laga soo dayn jiray raadiyo hargeysa oo la odhan jiray goye naaska hoona garag oo markaas soo baxday ilaahay raalliha ka noqdo qabriga allahu waasciye heestaa uu ku guulaystay maxfalkii uu ka hadlay ad baa loo qaatay taasina waa ku xusuustaa sheekh cabdiraxmaan kaariye dhacdooyinka aan ka bixin wuxuu ahaa sheekh markii cilmiga uu gudbinayo yacni masale kasta si uu kuu fahansiiyo mathal buu soo qaadan jiray ka mathali waxaa ku yaraa cilmiga naxwa iyo sarfiga mee magaalada ku yaraa had iyo jeer kitaabka aqriyay taajka waxaan garanayaa isagoo meelo badan nagu dhiirigeliyey oo dee waa lanaga xariibsanoo magaalada hargeysa zamankiisa cilmigaas uu yaraa bal ilaahay nin caalimo la soo galaa uu jirayay laakiin had iyo jeer lama dhaafi jirin meelaha sheekhuna markii dambe ku yar nagu baraari jiroona jiray bal waxaa habeen baan garanayaa taajka intuu yar joojiya wili wada 2 nin yaa safray nin faqiih buu ahaa nina wuxuu ahaa naaxib buu ahaa reer bays martiyeen markaasuu kii naaxiga hadluu yidhi alaa ayuha alcajiza daaka caajili fanaxnu rabilcaalamiina jiyaacun kii faqiihaa yidhi warmaynigii wowgiiba wowlcadaf mooday aniga ilaahayba waan gaajoonanaa waa wowlqasame wallaahi baan ku dhaartay weyaane dee waxyaalaha ku xusuustay ka mid uu yidhi cilmigani wuxuu u baahan yahay in mididiisa la helo odhan jiray maasha allah ciddii wax baraysanana dhiiri u dhiiri gelin jiray ciddii yaree waxaa kaloo ku xusuustaa culimmada dee dad bay isku daraan nidaamyo badan bay leeyihiin dad baa daba uugaama ama daba raaca kelidii 7% socodkiisu iyo xaalkiisu keli buu ahaa cibaadadana waxaa ku xusuustaa in aanu marna masaajidka ka habsaami jirin bal iska daaye kolkay barh ka hadho ayuu kursi yar hor dhigan jiray halka maxraamka hortiisa maqribka halkaasaa daa'iman u hay kelidii isagoo tusbaxana markaa tagtay markaa axwaashiisu nin kalsoonidiisu
sheekh kalsoonidiisu boqolkiiba boqol oo hadday dhinaca dowladda tahay hadday tahay khalqiga runtii alxamdulilah nin caalim u ahaa dadka ay isugu yar dhowaayeen aan ku arki jirin laba nin baa ugu yar badnaa xuseen cumar xaashi iyo sheekh cabdilaahi sheekh ibraahim abusite labadaasina aad iyo jeer aragooga iyagoo labada aad bay wax uga dhexeeyeen saa'ida weliba sheekh ibraahim abusita markaa xaalkiisu sheekh aad iyo aad wakhtigiisii uga muuqda acyaanta markaasi magaalada hargeysaadna kutububa akhriyay horta dee kitaabka qur-aankaa cidi kuma gaari jirin amba culimo waaweyn oo imanaysay oo xirta markaan dhegeysanayno oo galbeedkii bid wax garanaa sheekha oo xajka tegayay oo ku dhaxoona intayn isku ka yeedheen anagu culimo masaajidda culimo ku dhex jirtay anaguna masaajidkan geli jirnay sheekha waa ka xambaara waa caalim قال الشيخ علي الناصف markuu yani kitaabka uu bilaabayo ayuu maartay waxa weeyaan saa ku bilaaban jiray ama dee kitaabkuna sidii axkaamtu u qoran yaho axaadiid weeyaan laakiin sidii axkaamtu u qoran yaho baabka cibaadaadka sidaas oo kale maartay tartiibtii fiqiga ay maartay kala baabaynaysay ama u kala kitaabaynaysay ayuu qoran yahay marka xadiidkii markuu akhriyayo dee sheekha maartay iyuu torta soo magacaaba uu soo tartiibiyo markaa dee kitaab iyo xadiidka uu soo dhacayay markaa khudbadihiisiibaa inta badan igu soo dhacaa sida khudbadda u akhrin jiray si macaanu jecelahay buu akhrin jiray oo khudbadihiisa inta badan igu soo dhaca horta kulle waxa ugu badan waxtarka aabudee in islaaxinta dadka dhinaca dee fatwada sheekhu fudwoon jiray in arrimaha kale culimada qabtaan ee magaranaysaa in dee shaqadoodana uu ka qayb qaadan jiray reeraha aad buu ugu dhex jiray islaaxinta dadkiis haystaa uu islaaxin jiray ama dad isqaba ama qeyrkood ba ahaadaane caa'ilada iyo caruurta sheekhu waxaanu nahay 4 caruurtiisii ah 3 inan iyo inan baanu nahay waanu wada nool nahay caruurna waanu leenahay hooyo keliyaana noo dhashay oo qaali ahayd hooyadii Basra Cabdi raxmatullaahi calayha oo iyaduna bilo ka hor dhimatay oo xalkan Hargeysa aan ku aasnay hooyo wanaagsan si fiican noo soo korisay anagu nagumay kaabsanee xitaa caruurtayadii ay korisay raxmatullaahi calayha sheekhu raxmatullaahi calayhi cilmiga shareecada wuxuu ku soo bartay dalka Itoobiya ayuu ku soo bartay markaasi culuntiisuna way kala duwaneed aabbo raxmatullaahi calayhi dabcan dhinaca fiqiga shaaficiga dee aad buu yaqaanay oo dadku ku kala xukumi jiray oo wixii in dadka dhex mara uu ku kala xukumi jiray fiqiga shaaficiga laakiin waxa u dheeraa sheekha intaasi raxmatullaahi calayhi inuu ahaa lugawi luqada carabiga aad iyo aad u yaqaana mufassir aad iyo aad tafsiirka yani ku xeel dheer buu ahaa raxmatullaahi calayhi wuxuu kaloo ahaa muxadith buu ahaa dhinaca in tafsiirkan ku horeyn doonaa cilmiga uu lahaa kitaabka ilaahay jalla wacala in sheekhu tafsiirkiisa siduu sheegay nin caalimo ay saaxiibaayeen sheekh Sulaymaan oo magaalada Gabiley ku nool oo kula kulmay wuxuu yiri sheekhu wuxuu oran jiray xertiisa waxaan filayaa inay dadka caamadii tafsiirkiisa dhageysanay aan ahayn laakiin xerta cilmiga ka dhiganaysa sheekhu wuxuu shardi uga dhigi jiray inuu ardaygu yaqaano alfiyada inuu yaqaano alfiyada min Maalik oo wuxuu oran jiray nin aan alfiyada soo akhrisan ayuuna darskeyga isoo hor fariisan si aanu hadhow oran Sheekh Cabdiraxmaan Kaariye ayaa aayadaasi sida u fasiray marka luqadiisa af carabigu aad iyo aad bay u sareysay tafsiirkiisuna saas u ahaa oo culimo ayaa ka dhigatay oo ka qaadatay wuxuu sheekhu aab raxmatullaahi calayhi uu ku gaar ahaa culimo kale la wadaagtay way jiraan laakiin markuu tafsiirka marinayo iyo duruusta markuu marinayo maadaama uu baaric ku ahaa luqada af carabiga wuxuu ku dadaali jiray inuu damaa'irta iyo
asmaa mawsuulka inuu mar walba meeshiisa u celiyo oo ism mawsuulkii iyo ism ishaarihii oo mucallaqa aanu halkaa ku dhaafin taa waxaan ku arkay sheekhayga sheekh maxamuud oo suufi xafidahullah oo isaguna markuu tafsiirka fasirayo waana ka dhigtay tafsiirka qaybo ka mid ah caadadiisu ay saatay bal wuxuu ii sheegay sheekh maxamuud oo suufi xafidahullah in sheekhiisii sheekh xaaji cali suubane sheekh raxaweyn oo ahaa oo ah sheekhu aad iyo aad u qiimeeyo kuna tilmaamay inuu sheekhiisii culimmada wax ka bartay ugu weynaa u ahaa sheekh xaaji cali suubane 7 sano ilaa 8 sano ayuu ardal xijaas joogay uu soo noqday alfiyadana sheekh maxamuud wuu ka dhigtay marka wuxuu sheegay in isagoo saahayo uu ku dadaali jiray yani in asmaa ishaaraha iyo maalinka maanta ah saan idhi ism mawsuulka iyo damaa'irtiyo inuu si fiican oo waadixa u waadixiyo oo mid walba uu meeshiisa u dhigo si tafsiirka aayaadka ilaahay iyo axaadiiska rasuulka sallallahu alayhi wasallam ay si fiican ay u muuqdaan taasi waa dhinaca tafsiirka in culimo ayaa tafsiirka ka dhigatay maanta inala nool aniga laftayda dee aabba sheekh buu ahayo taqriiban waxaan ahaa 7 jir baan ahaa mise 8 jir baan ahaa markuu naxwaha ii bilaabay marka meel hoosuu iga bilaabay naxwul waadixa ayuu iga bilaabay raxmatullaahi calayh xaqiiqatan anigoo yar buu mafaahiimta asaasiga hore naxwaha igu bayaamay tusaale ku siinaya ustaad xamso wuxuu ii dhigi jiray kitaabkii naxwul waadix oo ilaa maanta yaala marka waxaan xusuustaa al-mubtada wal khabar markuu ii dhigay waan yaraa markaas waxa ku yaalay amsaladii al-bustanu jamilun ash-shamsu tali'atun markaas uu fahamsiyo concept kan ah mubtada iyo khabar ay wuxuu oran jiray al-bustanu waxba maqan bustaanku maxay weey jamilun kolkaasi luqadiisa af carabiga waxa cajiib ah aababa sheekada iga sheekay raxmatullaahi calayhi in mar raabitatul caalam islaami ay culimo carabo waaweyn oo abubakar jazaa'iri iyo sayid saabiq iyo ay ku jireen in muqdisho la keenay deetana culimo soomaali la soo ururiyay sida culimada carabta ay wax ugu dhigaan طبعا waxa laga yaabaa inay dee aanay in maqaamka culimada Soomaaliyeed waaweynay ay leeyihiin in aanay filaneenba marka sheekadaasi aabba ayaan afkiisa ka haya raxmatullaahi calayhi waan ka guntay waxaad qiyaastaa culimo lamida sayid saabiq iyo abubakar jazaa'iri marka طبعا sheekh af carabiga u dhigayna waxa diktoor buu ahaa masri isaguna aan isticmaal filayo inuu haa isaguna inuu azhar aabba ii sheegay qisadan iga sheekay marka culimadaas la keenay marka wuxuu anagoo ku jirnaa in duruus marka darsi af carabi oo ahaa diktoor مصري أديجاي ويقولون فتاحلو كلام سان سيدا اللغة العربية كويهين كل كاس واحد سميه مداخلة سميه درسي وشرح أي مداخلة سميه مركا وحا قتي أما هاد بينو أنو شيخا لغوي مصري أنو فيلنين إن أردنا اللي يلو حرق إنه كتيرو ده شيخ مستويس اللغوي ويستوي هاي علماء بدر السومالي ويترانو دي صور دكتي الفيدي ابن عقيل كيو مقرانسا إتقانيي لغة في عربية آدية إتقانيي لكن هو حيراد علماء الصوماليو متمكنين كوا إن أي علومتي دينتي صور دكتين في عربي كشرح كراية بركا دكتور كي دقاي مادة أيا وحي يقولي شيخ قرن ما يدقوا حميشا لغوك يعني كلاس كان إنه سوى فريسيو ما يهين مركا أما كلاس كي قد وات كي تيجي دون تشيخ نوع إحراج شو درامي أما حمان كهذا البني يابا إن هذا مدرس كان نقطه عتفصل كان لغة في عربية إن الدكتور مركا أب لغة في عربية ساسو كوها رحمة الله عليه إن مركا واحد مفسر بو شيخوها شيخ أنا إيري شيخ سليمان ومقالة الجبيل جوجو شيخ أنا قاعد سكوي قانين أيها سنوح إيش هاي شيخ مركو تفسير كرجعيو حنفيل يا واحد ودري النبوي هاد أيها وحيني وحكون يجي تشري أف صومالي يو أف عربي يو أف أورمو ونإيش هاي سد حدث سيدو نشري بإيش هاي سد حدث القضاء با مركو تفسير كبلعبايو siduu ugu dhawaaqi jiray iyo siduu oran jiray ayuu sheegay waxaan kaloon niri
aaba raxmatullaahi calayhi wuxuu ahaa muxadis buu ahaa oo kitaabka التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكتاب دولك الصومالي عان كوها كتاب كاسي أيو شيخو وحو كسو مرسدي شيخيسي شيخ عمر الزهري oo isaguna ka soo marsaday muallifka kitaabka qoray marka fadiilatu walid rahmatullahi alayhi kitaabka taajka wuxuu ku haystay sanad buu ku haystay oo anaaba dhagahayga ku maqlay isagoo mustajaamicii hore magaalada Hargeysa markuu akhriyaayo wuxuu ku bilaabi jiray وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى قال ساسو ku bilaabi jiray وانا de dhaqanka culimada kutubta akhriyaan inta badan asaaniid bay ku haysan jireen Etoobiyana wuxuu ku ahaa arrinkaasi arrin macruuf ah culimadu ay asaaniida ay haysteen sheekha taajka uu ka qaatayna waxa saani waa sheekh Umar Zahri in sheekhaasina wuxuu ka soo qaatay sheekha kitaabka qori laftiisa ayuu Masar uu kaga soo qaatay sheekh Maxamuud oo Suufi xafidahullah ayaa wuxuu ii sheegay marka uu kitaabka la mariyo وحتى واحد يجلسين شري شيخان إن لهوا شيخ محمد الصوفي أف عربي أو كسر دكتي شيخ علي حاجي صوبنا لفتي سأي كتاب كده يجلسين شري مركز شيخ محمد الصوفي إيش هيجي حفظه الله إن أبو فضيلة الوالد درسي مركز الصومالي لقوم مريو أيا حر عربة أيو يسوي أف عربي ويسوي مرين شري درس كده marsaas uu igu yiri uu sheegay oo xustaan marsaa igu yiri marna wuxuu igu yiri af Soomaali buu ku marin jiray labada riwaadoodba waan ka hayaa sheekh maalin baan aniga sheekh Maxamed oo Suufi la fadhiya in markaan kutubta ka marsanayay ayaa waxa ag yaalay kitaabkii taajka ag yaalay saan soo qaado sheekh waa taajkii subhanallah waa kitaabku Sheekh Cabdiraxmaan Kaari digada ka dhigay marka horta kitaabkaasi aad buu faafiyay culimo badan oo ka dhigitay inay xataa imika waxa jiray sheekh أستاذ حمزة وكوشة شيخ الأورنجري الشيخ يوسف محمد إن حرتي هريري هرقيس وقرانيا أنا قلت إن حلقة بلوغ المرأة ما ودي شيء شيخ يوسف أيان صو حاضري كتبت الأحاديث أنا مقالة آدي بوفا في شيخ خاصي وحوها شيخ عبد الرحمن كاري أردي سويها فضيلة الوالد وحن كم مغلي إنه يقول لي شيخ يوسف إن بدن بيهوز في الدية وعلمي قادناي شيخ إسماعيل وأنا حالي على كلمي أيان يروي دية مركب يقولي شيخ يوسف شيخ كم مرصدي شيخ عبد الرحمن كم مرصدي كتاب كله كم مرصد ذاسو كانوا ذاسو يقولي لكن عموما واحد تاسي تلمام يساؤون إن شيخه رحمة الله عليه وها علماء ديال الأورن كروا بفرق ترس الدروس يعلون تأيبرتين كل يجي شري أف عربي كوجد بين شري أف عربي هنا كل يجي شري وحن كانوا مغري شيخ ومركو هرجيسي مد وحلوه مجعاب شري شيخ عبد الرحمن بخاري بلوه مجعاب شري شيخ عبد الرحمن بخاري أيا لوه مجعاب شري مدام وحديث كساسي وآخر شري وحن كانوا مغلي شكل أنا وحب بهانت إن التحقيق شو تاريخان دب لقى ضبط هجاه إن قفكي وهريي قبل وقوي أن كنا الحي شيخ وهريي حديث كأخرية أيو أبهاي رحمة الله عليها شكل أنا مغلي لكن وحني تحقيق تاريخي أيو بهانت هاي إن هورن وح لو يقولوا يصير منطقة وفقه شافعية يقولوا قضاء في عربية أيا لو يقولوا يصير أرن كلا دار ويسوق دبو عنونتي أبو رحمة الله عليه وحويا وخطبة دي سجمعة خطبة جمعها بري يروح خطبة كب العابين مساجد مستجامعي هوري هرجيسان هارون لده هارون لده كو أجيال إلا يمكن وجرا دي بالورسي لكن مركي لديسين مستجامع وين هرجيسي دولده سا ودو أبو مساجد كاسوح كآخر تري خطبة جمعها يلا بده خطبة العيد مركا وحولها شيخ أسلوب قارئ أيولها إلا ما أنت عندك تشرين وحنوجه إذا كيفية الإلقاء سيد خطبة ديس وجهدين تشري وحي هاد محتى لي أسلوب قارئ أي هاد أسلوب كاس صوها وحا أسلوب ولو خطبة ده ساعة شيبة وقول له قين تشري لغة سيو ما تشهد لغة شعر كلغو آخريو وحي يعني طريقة إسقى قارئ وهيد
oo ka dhigaysay qofka dhagaysanaya xitaa aan af carabi aan garanayn caamata naas inay si toos ah ay ugu xidhmaan waatan ay gaaladu yidhaahdaan connection markiiba waxa weeyaan qofku wuu qabsanaya usluubkaasi uu khudbadda ku akhriyo ayaa qabsanayay waana la wada dhegeysan jiray dad badan baana sidii uu akhri jiray aabbo dadkii soo gaaray ilaa maanta way yaqaanaan waxaa ka mid ah culimmadeena waaweyn mar i xusuusiyey siduu aabbo khudbadda u akhri jiray fadiilatu doctor axmed jaamac ismaaciil mire marka haddaan soo qaato aabbo xadiidka abu hureyre ee imaam muslim saxiixiisa ku soo wariyey ayuu khudbadihiisa ku soo celcelin jiray waliba khudbadda labaad ahayd baan filayaa marka waan idin yar marin doonaa inkastoonan sidiisii aanan ugu oran karin laakiin dadkii yaqaanay ee dhegeysan jiray wax laga yaabaa in ay ku xusuustaan aabbo raxmatullaahi calayhi siduu khudbadda jimcaha u akhri jiray intaan laabinna khudbadiisa jimcaha markuu muse jaamica weyne dowladda hoose u dhow ku akhri jiray idaacadda raadiyo hargeysa live baa looga sii deyn jiray oo wax allaale waxay dadka idaacaddu gaari soo dhami live yacni bath mubaashir oo xay ayuu ahaa marka xadiidkaasi abu hureyre imaamu saxiixiisa ku soo wariyey ayuu ku celcelin jiray in badan marka intaan ka xusuusto siduu oran jiray waxay ahayd وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلموه ولا يحقروه ولا يخذلوه التقوى هنا ويشير إلى صدره 3 مرات marka khudbadiisuna ilqaa noocaasi ah oon filayo malaha carabtii diri dhaba ku nooleedii buu kala yimid laakiin wuxuu ahaa usluub subxaan allah yacni qofka af carabiga garanaya iska daa ka caamigaan af carabiga garanayna waxa weye ilqaagiisa oo keliya ayaa magaranaysaa soo jiidanayay oo magaranaysaa uu ku soo dhowaan jiray garanayaa dabcan in haruurihii masaajidkii haruuraha jaamicii hore weynaa harkiisa anigoo yar oo caruura oo arkaya aabbahay oo labisan oo labiskii culimmada ku labisan oo mimbarka fuulayo ka khudbadeynaya ana aan ina yar ahaan saa weegayo yaan soo jiray tanoo maalin mimbarka maad fuuli waan markasta igu soo ka fikiri jiray مواقفتنا الشيخ حمزة way badan tahay laakiin xaqiiqatan inaan emotional noqdaan aan doonayn maktabad uu sheekhu lahaa maktabad buugaaga oo sheekhu lahaa maktabadiisa kutub baa ku taalay 1934 aaba markuu xajiyey raxmatullaahi calayhi ayaa wuxuu ka soo qaatay maka uu ka soo iibsaday kutub badan buu ka soo iibsaday كتبتها سوحة كمدها الفقه على المذاهب الأربعة إيو في ظلال القرآن لأستاذ سيد رحمة الله عليه الشهيد سيد قطب رحمة الله عليه كتابك الفقه على المذاهب الأربعة وحن أنو يسري صوبته ومكو قسو إيبسدي واحد مدائنه آبا كير بحسنا إطاركي علميها فقهها xilliga dalka yaallay ahaa inay culimadu fiqiga shaaficiga ay darsi jireen ilaa dee muu soo qaateen kitaab fiqh muqaarino madaahibtii oo dhan ka wada sheekeynaya kitaabkaasi mujalladka afraad baan filayaa maktabadaydii maraykan ayaan kaga imid wuuna yaallaa waxaana dhacday markii dalka laga qaxay lagu soo noqday ayaa dee waxbaa isdhex galay marka ninbaa wuxuu ku arkay qof suuqa hooseeyin khayriyada u dhow meelahaasi kutub badan ku iibinaya marka kutubtii buu eegay wuxuu ka helay kitaab mujalladka afraad baan isla inuu ahaa ilaa imkoonaya maktabadaydii maraykan insha allah iman doontaa ayuu ku jira الفقه على المذاهب الأربعة marka umarkuun aabana aad buu khadkiisa u qurux badnaa marka wuxuu ku qoray aabo in magaciisa buu ku qoray الشيخ
عبد الرحمن كارية محمد مركا كتاب كسوة المامي أيودي اتصل بملكه شراء من مكة المكرمة تاسو قري قلت شيخ كتاب هو كتاب عبد الرحمن كارية بلا الحمد لله إن فضلي إلهي بكل عدد إنك كتاب كي وأدورته وقصه قاضي ناني وانكي تقريبا مرة انطلق إميدي ناني توق ميد هيد كرماي أيا كتاب كي ويسيدو ويهي أيو كياني إلا يمكن نحن كوي مكتبة دايدان كوهيا فرتي سنة أدوشا كو قرنتي هذا مكتبة دا أبول لبا كتاب آدي آدنيك إي تأثيري لبدا كتاب وحي أهايين كتاب كان إني شيء ومكاكسو إبسيدوها في ظلال القرآن للأستاذ الشهيد سيد قطب رحمة الله عليه حتى waxaan xusuustaa aabo markuu tafsiirka diyaarinayo taa ibn kathir ka uu yaalay isaguna iyo jalaaleenkii iyo kutubtii kale ee dalka lagu yaqaanay uu si akhriyi jiray markuu darsiga tafsiirka akhriyo uu akhriyi jiray bal waxaan oran karaa kitaabka dhilaalka wahdat shabab al-islam wuxuu kitaabkani soo gaaray horaantii 70-nadii buu soo gaaray horaantii 70-nada ayuu soo gaaray marka aabana de xiliyadaasi ayuu soo kitaabku iskii uu soo iibsaday oo hargeysa oo la yimid maktabadiisana oo kamid ah marka waxaan karaa waa nuskhadihii dhilaalka ee ugu horeeyay wallahu a'lam taasina taariikh way u baahantay magaalada hargeysa soo gaaray ayuu kamid ahaa marka kitaabka dhilaalku aniga markii dambe wuxuu igu yeeshay tafsiir badan buu igu yeeshay intii aan korayay dhalinyarta aan ahaana waxay thaqaafadeyda diiniga iyo thaqaafadeyda xarakiga intaba wuxuu ku lahaa door badan buu ku lahaa bal iska daayay markii dambe tafsiiran ka akhriyi jiray masjid nuur baa la yiraahdaa maana kafil loo bixiyay suuqi shiraaqle hore ku yaala ayaa tafsiir baan ka akhriyi jiray anigoo wali dhalinyara dhilaalka aad baan u akhriyi jiray marka kamaan diyaarin jiray nuskhadii taalay in meelo kale waxaan ka akhriyi jiray nuskhadii aabbe ee guriga taalay ayaan ka muraajacin jiray oo ka akhriyi jiray marka waxaad arkaysaa cilaaqada naga dhaxaysay aniga aabbo iyo maktabadiisii cilaaqada naga dhaxaysay kitaab kale ayaan sheegayaa isaguna aad ii ta'siiriyay oo maktabada aabbo raxmatullaahi calayhi yaalay kitaabkaas wuxuu ka sheekeynayay وصلاح الدين الأيوبي كشيكيني السلطان المجاهد صلاح الدين الأيوبي ونقانو إنو حريي إن بيت المقدس إنو حريي إلهي وكوك هالمي هذا كتاب كاسيسو تأثير كيوسمي بري مركا أيرا لقد فعريب ما نخري كرين وفعريب حكم ما نخرين لكن وحي تأثيري صورك عنت لقو صوري وصلاح الدين الأيوبي عمامة ديسي قركيسي شكل جيسي أي آدي سوتشي مركا أنا وحي لأيكا أن دكوف السرين يا أنا يربوك سرور من الداون تري إن وكميديا هيدا دتكي هراء إسلام كحقبتي إسلام كأهيلي إسلام كوحتري صور كيس صلاح الدين الأيوبي أنا يربوك مكتوب أبي لي أن كو أركينا وحمرضم بي وينادي يقدح موقضي مجاهدين تي أفغانتا المجاهدين الأفغان أفغانستان كحريي وزادي الاتحاد السوفيتي سو يقدح موقضي سانو قد حركة أفغانتا صور كيس لحدينا عرون مدان كواركي بوجا مكتوب أبيالي وحي إيه تأثير سي صور كي يهما جي أن يران تكو أركي نكا مجاهد كا سلطان كاها قركيسي عمامديسي وحن كده حركون مجاهدين تا أفغان تيركر كده ديراد عمامده هو ويننا حنت أن علاقة نجد حيسي ده كأبو يعرورت يولا لذي وأبي عرورتي سويان marka aabo raxmatullaahi calayhi cilaaqad adag buu la lahaa caruurta iyo de anagaba una lahaa maantadan baan waxaan la hadlay walaashay baan la hadlay saan idin sheegay waxaan anagu saddex inan baan marka walaashay rawda ayaan la hadlay marka su'aal baan weydiiyay waxaan ku yiri documentary baa laga duubiyaa aabo raxmatullaahi calayhi ku saabsan haddaan ku weydiiyo maxaad ku xusataa aabo maxaad ku xusataa waxay ugu tiri xaqiiqatan waa mulaaxada jamiila oo raa'ica jiddan 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 waxay ugu tiri waxaan ku xusuustaa aabbo bay tiri inuu anoo yar quraanka baray bay tiri anoo yar quraanka baray
macallin aan isaga ahaynna oo qur-aankii baray garan maayo buu yidhi saan maanta qur-aanka u akhriyo wuxuu aabbahay raxmatullaahi calayhi kii qur-aankii baray marka akhi wa ukhti halkaa waxaan kala soo dhex baxi karaa anigu markaan eego dee aabbo mashquulsan oo imaama oo khatiiba oo reer mas-uulka ah haddana inantiisii aan marnaba ilaabin inantiisii aan marnaba ilaabin weliba markaa dib ugu noqoto dee thaqaafadiisii hore culimmadii hore ay naqaanee xernimada wax ku soo bartay ee saaha haddana dareemayay mas-uuliyadda aabbayaasha ka saaran hablaha oo maanta inantiisii ay ku xusuusanayso allaydi jazaa allah khayr aabbahay buu ahaa qofkii qur-aankii baray xalaqadna waanu nahayn guriga in allahuma salli ala maxamed in bacda salaat fajr bacda salaat alfajr maalin walba xalaqadaasi maalinta jimcuhun baa la seegi jiray lagama maqnaan jirin teeda kale bacda duhurkana xalaqad kalea jirtay oo duruusta iskuulka iyo waxaasoo kale ah marka waxaan leeyahay dee aabba raxmatullaahi calayhi inamadiisiina waxbuu baray inantiisiina waxbuu baray siba wuxuu wada baray laakiin fikradaha laynaga dhaadhicinaya maanta la leeyahay culimmadu hablahu waxama baraan oo tacliin uma ogola waxa weyn waxaad arki kartaa taasi waxay aabbahay midu mar horeba fikirkaa qaldan uu burburiyey oo dee inantiisii oo nool oo maraykan joogta ayaa maanta uga markhaati kacaysa in uu isagu raxmatullaahi calayhi isagu uu baray waa person to person behe person to person foolka fool isagaa baray macallin umuu kirayn ee isagaa intuu la fadhiisto qur-aanka baray inantiisii ilaahay isagana ha u naxariisto ha ka abaalmaryo cilaaqooyinka uu aabba uu aniga khaasatan uu ila lahaa waxaa ka midun sheegayaa berigii uu dhashay kacaankii Khomeini 1979kii buu ahaa markuu dhashay waa lagu dagmay inaguna ka Soomaali ahaan horta dhinaceena waqooyiga shacab miin qoonba shacab maxay yihiin miin qoon laakiin waxa la yaab leh in dad mufakkiriina oo xarakaad islaami ku jiray oo kutubtooda la akhriyi jiray ay kacaankii Khomeini ay ku dagmeen laakiin ودي مقعي واوينو نمان مفكرون لا يقانو أي مودين الثورة الإسلامية وقاتين حتى أتباع دودا حركات كوغا يجمعون كوغا كل رجلين إن خميني كعن كيسي الشيعي هاي حما إن تغيروا خميني ضدكم حكوت ضجيبه هين يعني الموت لأمريكا الموت لإسرائيل سكر ميسيد وضدكم حكوت ضجي لكن مرة كنا مو طنكر هين إسرائيلنا إنه يهودنا إنه أرض فلسطين كحرية مودونين شيعي خبيث أيها الرافضية نعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عايد مركين النبي جاي هو يمكن مسلمين أيها خبيث بوها لكن لمن واوين ومقع واوين وحركات كإسلامية مضحكها مفكرين وها علماءها قادبلوها أيها كوكل دمي لكن وحلا يابا أبو رحمة الله عليه مركا ما دام أنه حركة الإسلام كالحركة الإسلامية أنه كل حنولين كنا جزء من الحركة الإسلامية ثقافة ذا كتبت ذا فكر كذا قادة ذا مفكرين ذا وأنه كل حنين واحد قرآن وأنه خريجني مركات هذي بأنا كنا تأثير نقول يا رتي مركا ما نبغى أبا مقالي أنا جو خميني أمانة وإيري وحين الشيطان كان بدأ أمانة سابي الشيطان كان بيد أمانة سا ويابي markaasuu iga sheekay waxay yihiin wuxuu iga sheekay waxaan imika tiifiyada aynu ku aragno oo ah intay laba silsiladood ay qaataan ama midiyo ay labada garab saas ka dhuftaan Xasan Xuseen 1979kii weeyaan oo dalka aanu tiifi jirin oo dalka internet aanu jirin marka waxay taasi aniga ii tilmaamaysaa imaka in fadiilatu walid rahmatullahi alayhi ثقافتي سعام كأدو سريسي هي معلومات كوكا هيستي إن واحد دون كقصة وإلا دي واحد أن معلومات يجسي خميني الرافضي الخبيث يو كعان كيسي الشيعي جاها المسلمين تبلايد أوكياني واحد واحد تاكنتون إنه أقون زائدة ولها ولذلك هي مقال دير بان كقري أو أبحيي أنت أمريكا نشوفها من قريب وحنا بحي مقال كاسي أباهي أيه يجدي شيء عظم
dagaaladii aabba halkan bay ugu dhaceen Hargeysa inuu ka soo baxana muu doonayn laakiin marka arrimihii soo xumaadeen ayaa waxaa tagay Muqdisho ayuu tagay Muqdisho markuu aabba tagay raxmatullaahi calayhi waxaa dhacday in culimo waaweyn oo reer Muqdisho ay aabba ka dalbeen inuu kitaabkii taajka u akhriyo wayna ka warhayeen waliba masaajidkii Marwaas ee caanka ahaa ayay ka dalbeen inuu xalaqad bal kitaabka intaanu marka aabana Mareykan buu ku soo dhoofay intaana doofin kitaabka noo dulmar oo noo mari bay yiraahdeen laakiin yani aabba markaasi dee quwadiisiina way daciif buu noqday xanuunna wuu yeeshay kolkaasi in may suuragal ahayn laakiin umuuman aabbo Mareykan baanu keenay muddu Mareykan joogay aan saa usii badnayn wuu xanuunsaday oo waxa ku dhacay in stroke baa ku dhacay jalda ayaa ku dhacday muddo dheer buu aabba lahaa dhiikar lahaa ilaa 1977kii waan xusuustaa aabba dhiikar baa ku dhacay raxmatullaahi calayhi ilaahayna ajra ka siiyo sabrku sabray iyo dhibaatada ka soo gaadhay xanuunkaasi laakiin markii ay jaldadu ku dhacday dee waxa weeyaan aabba khalaas wuxuu noqday sariir jiif buu noqday intii uu xanuunsanayay aabba dikrigun buu hayun dikriga ayuu hayay oo xuska ilaahay ayuu hayay laakiin haddaan waxay idinka tilmaamo maalintii uu aabba u dhintay magaalada Portland ee Oregon ayuu ku dhintay waxay ahayd December 10keygii 1993 bay ahayd marka aroortaasi khudbad baan ku lahaa magaalo noo dhow Corvallis la yiraahdo magaalo Corvallis noo dhow ayaan khudbad ku lahaa marka intaanan bixin ayaa waan arkayay inuu yani adkaar badan buu akhrisanaya waa isla maqan xanuun baahaya ayaa waan u imid maan garanayn inay noqonayso an-nadra al-akhira aan aabahay aan eegi doono aan fiirin doono markii ugu dambeysay isagoo nool laakiin waan isul taagay waan u duceeyay saan isleeyay albaabkan ka baxay haddana dib baan u soo noqday haddana mar kale aan eegay anoon isleeyayn waxay ahaanaysaa nadar al-akhira waan tegey khudbadda intaan ku jiray ayaa aabbo naftu ka baxday raxmatullaahi calayhi maalin jimco ay ahayd waxaan rajaynayaa in xadiiska nebigu sala allahu calay wasalam uu ku dhawoobo ay xusn khaatima ay ahayd lianna almowt qofku inuu dhinto maalinta jimcaha habeenka jimcuhu waxa weeyaan waa min calaamaat xusn khaatima aabbana fadiilatu waalid sidaasaan rajaynaa marka markii aan dhameeyey khudbaddii iyo ayaa la ii yimid marka walaalkii baa telefoon ku jira horta inaan aanu saaxiib ahayn sheekh cawad inaan Liibiya isna uu dhintay ilaa naxariistee ayaa markii aan khudbaddii ka soo degay buu salaadii aan dhameeyey buu ii yimid si fiican uu sameeyo iimuu sheegin ilaa intaan khudbaddii akhriyay ee dadka salaada tukinayay markaan saadii ka baxay buu yidhi in cadama allahu ajrakum ilaahay ajarkiina ha weyneeyo alwaalid wuu dhintay halkii baan ka soo daraafgareeyey oo aan imid magaaladii Portland waxyaabaha cajiibkan aan arkay nolosheeda waxa weeye aabbaha iyo hooyaday labada midna maan la joogin markii ay dhinteen hooyaday dhowr bilood ay dhimatay muddo xanuunsanaysay intaa WhatsApp-ka kamarada ayaan kula jiray alxamdulilah ilaah baa ku mahadle maalmo ay xanuunsanaysay 6 jeer baan ku dul akhriyay suuratul baqara yaasiinka in badan baan ku akhriyay laakiin طبعا maraykan bayna ku dhimato maan kari karin inaan maraykan tago oo taas suuragal ma ahayn laakiin geerideedii inagoo halkan joogno masaajidka
masaajidkan jaabir ayaa subxaan allah maqribkii ka hor ayaa anigii sheekh jaabir baa kaga akhrinay suurat yaasiin baan kaga akhrinay cishihii markaanu tukanay aan saa uga baxay asalaamu calaykum wacalaykum asalaam ayn baa telefoonkunbaa igu dhacay waan fadhiyay qibladaan weli u jeedi sheekh xasan baanana tukinayay telefoonka baan qabtay walaalkayga ayaa ku jiray walaalkii nuurudiin geerida aabbana walaalkay cabdixakiim baa ii sheegay markaasuu igu yidhi isagoo yani akhadat alcabaraat hadli kareen ayuu yidhi hooy dhimatay marka waxaan la yaabay aabe geeridiisina masaaj baa laygu sheegay aanu joogin hooyo geerideediina masaajid baa laygu sheegay oo weliba labada jeerba anigoo salaad ka baxay asal allah casa wajal inay tahay bishaaro ilaahay iyagana u dambi dhaafo qubuurta u nuuriyo wixii muslimiinta oo dhanna ilaahay naxariiso haddana aabbo kusoo noqday tii aabbo raxmatullahi calayhi markaa aabbo waxaanu doonnay inaanu meydkiisa aanu hargeysa keenno duruufuhu xilligaa way adkaayeen dalka diyaarad badani mii jirin markaa caqabad weyn baana hortaalay caqabadaasoo ah in maraykan meyd aan laga saari karin diyaaradaha yani badankoogu ma aqbalaan ilaa meydka lagu sameeyo waxa la yidhaha embolment embolmentku muxuu yahay waa saxbu dam in meydka laga shubo dhiig iyo dheecaan wixii ku jiro dhan waa sida keliya diyaaradda lagu saari karaayo taasina dee waxay ku siiyeen qolfoofuun bay ku siiyeen ilan dhiiggiina dheecaankani wuxuu ka mid yahay jirkii buu ka mid yahay jirkii ayuu ka mid yahay marka waanu dabagallay wixii laakiin wuxuu ilaahayna waafajiyey in aanu warqad ka qorno islamic centerka masaajidkii baanu ka qornay warqada fikirisiya oon leenahay according to the islamic shariica according to the quran and sunna haddii la tix raaco shareecada islaamka iyo kitaabka iyo sunnaha sal alla alay slam nabiga ma bannaano in qof muslime meydkiisa embolment lagu sameeyo dad badanna arrinkaa jaahil bay ka yihiin dad badan arrinkaasi kama warhayaan marka warqadii baanu u dirnay diyaaradaan u eegnay waxaana aqbashay air france maana aqbashay air france ayaana aqbashay meydkiisii markaa raxmatullaahi calayhi aniga iyo walaalkii nuurudiin iyo walaalkii cabdixakiim iyo wadaadda carab oonu saaxiib ahayn oonu isku ahlu masjid ahayn ayaa aabba meennay raxmatullahi calayhi marka kofankii baan ku ridnay kofanku wuxuu lahaa in maxaad tirahdaan boolal buu lahaa boolal ku xidhan marka intaan maraykanka ka soo bixi waxaan soo iibsaday baakan screw driverka baalka boolalka lagu furo oo bayteriya ku shaqeeya waxaanu ka soo qaadnay aabba raxmatullaahi calayhi Portland Oregon Chicago aanu istaagnay Sanca ayaanu nimid Djibouti ayaanu keenay marka Djibouti waxaanu ka sii kiraysanay diyaarad gaar ah bariga waxa weeyaan sida diyaaradaha loo helaabo may fududeen marka aad bal qiyaas fatradaas oo dhan aabba waxa weeyaan kafanku ku dhex jira gaaladuna culuntooda 12 saacadood wixii ka badan waxay dhahan jirku isbedelaa bay dhahdaan jirku way isbedelaan kolka waxa dhacday markaan Djibouti nimid habeen kulul bay ahayd waxaan rajeynay inaanu salaajad aanu meydka aanu galino meydka waalidka ayaan rajeynay islaam faransiis oo markaa ka mas'uulahayd meedadka diyaaradaha laga soo dejiyo airportka la keeno ayaa gooni bay noola baxday waxa ugu tiri I'm sure bay tiri based on the conditions iyo intuu diyaaradda soo saarnaa iyo caawo kuleelku intuu yahay magaalada aabihin jirkiisu uu isbedelay oo rag marka waxaan kula talin lahaa advice bay tiri marka destinationkii aad gaarsiisaan Hargeysa ah kofanka ha furna bay tiri xabaashana sidaa ku galiya waxay ahayd xaqiiqatan min ascab al-layaali fi xayaati min ascab al-layaali fi xayaati noloshayda habeenada ugu adag bay ka mid ahayd haddeena bay ahayd habeenkii noloshayda ugu adkaa waxaan doonayay inaan aabbahay sida sunnuhu tahay aan waaso laakiin isagoo kafankii aan ku kafnay isagoo kaasoo kaliya ku duuduuban inaan iilka iyo qabriga aan geliyo ay ujeedadeedu ahayd danteedu aniga walaalahayba sidii aan habeenkii ku daynay waan xusuustaayo aad iyo aad baan u ducaystay habeenka aan baryayo ilaahay subxaanahu wa tacaala aabbahay karaamo ka muuji jirkiisa xafid si maamuus iyo karaamo iyo sharaf leh ilaahay aabbahay lagu aaso
diyaaraddii baan aroortii soo raacnay markaa diyaaraddu waxaan waa diyaarad gaaray ahayd oo aniga iyo walaalkay iyo nin reerka ah markii diyaaraddii nala kacday ay buuraha waqooyiga ay soo gaadhay ayaa weli warwar baa haya عندي ثقة بالله عز وجل إلهي وان ku kalsoon laakiin weli warwar ayay haya marka intaan kacay suunkii diyaaradda intaan iska furay ayaan screwdriver-kiina soo qaatay boolalkii ku xidhnaa in saxaaradu aaba ku jiray sanduuqa ku jiray ayaa dhowr baan furay kor baan u qaaday marka waxaan arkay in aanay wax yani isbedelo ii uriya aanu jirin hargeysaanu ka soo dejinay airportka dad badan baa yimid ehli aqaarib iyo asxaab lahaa masaajidkii musa jaamicii hore u weynaa ayaan soo marinay albaabkii uu ka geli jiray maalin walba jimcaha iyo labada ciidoodba ayaanu gaarigii hor joojinay deetana waxaan u qaadnay xabaalaha boqol jir ayaan u qaadnay markaan xabaalaha keenay ayaa guri yar baa xabaalaha ku dhex yaalay xabaaluhu saa umay badneen marka odayaashii reerka ayaan ku yidhi iyo walaaliyo waniyo waxaan doonayaa inaad kafanka aan qolka aan la gali kaligii qolka inaan la galo markaana inta kusoo warcelinaya screwdriver baan qaaday waxaa kaloo jiray sanduuq yar oo kaloo ay soo geliyeen kiina waan furay allahuma salli maxamed wuxuu kaloo ku jiray in baag balastiga oo siisad leh oo meydka ay maraykanka ku ridaan kiina waan furay alxamdulilah kafankiisii anagoo aan gacmahayga aanu ku xidhnay ayaa kafankii ma furay subxaan allah subxaan allah subxaan allah markaan kafankii aan ka furay in wejigiisii aan arkay wax dheecaana iyo wax ura iyo wax kale abadan abadan jirkiisu aan isbedelin bal waxaan ka gaadhay codbiyo aan sanka ka geliyey afka inaan codbiyada inaan soo saaray siduu ahaa aan u meedhnay isagoo ah oo ilaahay subxaana wa tacaala uu dee aan leeyahay waxay ahayd karaamo ayay ahayd iyo fadli uu ilaahay aaba uu siiyey raxmatullaahi calayhi waxaan isleeyahay dee kolley uun waa cilmigii uu bartay ee dadka u baray xadiiskii nebiga yaan idhaahdo tafsiirkii qur'aanka cumrigiisa ku soo qaatay barasho iyo barid xadiiskii nebiga sala allahu calay wasalam ee uu mar walba ku dadaali jiray inuu dadka baro iyo dee islaamnimadiisii iyo diintiisii iyo cibaadadiisii iyo salaadiisii ayaa xafidahu allah subxaana wa tacaala jasadahu ayuu ilaahi jala wacalaa uu jirkiisii uu ku ilaaliyey waan qaaday waana dhunkaday marka xabaashana iilkana horta waan ku tukaday salaaddii janaasada aniga imaamkaha oo ku tukaday iilkana waxaa la galay qabriga aniga iyo walaalkii nuuridiin iyo nin kaloo isaguna akhyaaraha noo abti ahaa cabdi maxamed ismaaciil raxmatullahi caleyh isaguna u dhintay sidii baan aaba ku aasnay waxaan ilaahi subxaana wa tacaala ka baryayaa inuu u naxariisto inuu qabriga u waasiciyo inuu qabrigiisa ka dhigo rawda min riyaad aljanna inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu jannatu firdowsa ku arsaaqo iyo isaga iyo waalidiinteennii dhimatay oo dhan dhammaanteenna uu inagu kulmiyo jannatu firdowsa uu inagu kulmiyo halkaasaan ugu kala tegeen halkaasaanu firaaq jirin halkaasaa lagu wada waarayaa marka yani waxaan hubaa kelmadaha aan ka idhi siiradii iyo taariikhdii aabbahay inaanay oofinayn xaqa igu lahaa xaqiisu waa xaq weeyaan xaqulwaalid waana in waxaan la soo koobi karayn waxaanan qirayaa ilaahay hortiisa wax allaala waxaan maanta ahay oo dhan in isagu sabab weyn u ku lahaa ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto sheekh cabdiraxmaan kaari oo ka mid ahaa haldoorkii culimmada soomaalida isaga iyo culimmadii kale ee ummaddan soo gaadhsiiyey diinta iyo aqoonta